kii hargeliyayo daniyo hadafkaan lahayn kii hargeliyay noqo daniyo hadafkaan lahayn kii hirgeliyay noqo daniyo hadafkaan lahayn kii hirgeliyay noqo. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa soo dhaweyn loogu muujiyay madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni taasi oo lagu qabtay degmada Jariban ee gobolka Mudug. munaasabada lagu taageerayay madaxweynaha Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad aqoon-yahano dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horeyna waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadaasi. Soomaalida waxaan ugu bishaareynaa mucaarad wax ma kordhiyo israac ballaaran guul gacmo furan walaalnimo waxqabad nolol ilaa waxaa Soomaalidu tiraahdaa aqoon xumo abaar ka daran munaafaqad iyo mucaarad wax ma kordhiyaan. dadweynaha Soomaaliyeed Puntland khaas ahaan waxaan ugu baaqaynaa walaalkaya waa dooranay nala doorta. dowladda Puntland waa dowlad Soomaaliyeed weeye waa mid federaalka hooyada u ahayd waa mid taariikhdeeda waa laga warqabaa ayadana dowladda federaalka waxaa leen inay tixgeliso waxqabadkeedii iyo hooyanimadeedii. waxaa iyana dhankooda soo dhaweeyay ururada haweenka oo dardaaran u soo jeediyay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. gabdhaha ka ooyaya laascaana iyo waxaan jeclahay inay oohinta inaad ka bi'in doonto insha Allah. gabdhaha jidadka lagu qabsanayo oo dhalinyaradu xoogaysana sharciga Ilaahay inaad ku maamushid baan Ilaahay ka rajaynaya waana kaaga fadhinaa. waxaan kaloo intaa ku darayaa gabdhaha reer Puntland oo xaqiran oo waxa weeye xildhibaanadii laga qadiyay oo waxa weeye xilalka soo socda la raba cagta in lagu dhufto waxaan rajaynayaa midka u dhaqdhaqaaqa oo maanta aanu niraahna waliga ma annaan arag kaasoo kale Ilaahay inuu nooga ka dhigo. sidoo kale waxaa iyana ka hadlay munaasabada soo dhaweynta iyo hambaliyada madaxweynaha ururada dhalinyarada ee degmada Jariban. xukuumadii tagtay ugu horeeyay Cabdullaahi Maxamed Cali Gaas oo iyadu ahayd xukuumad in badan wax ka soo qabatay dalka kaawayaasha dhaqaalaha ka soo dhistay shantoodii sanana ay dhamaatay. waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantiin. waxaan rajaynaynaa inaad dhalinyarada ay xukuumadda iyo dawladda iyadoo ka wada dhex muuqdaan. waxaan rajaynaynaa dekada garaacad oo dhisan waxaan rajaynaynaa wadada wadaagsan oo dhisan waxaan rajaynaynaa one man one vote adoo nagaarsiiyey. Puntland waxay dhisan tahay 20 sano iyo dheeri waxa soo maray madax kala duwan waxay soo qabatay mid kasta oo xilka qabanayay wuxuu soo qabtay horumar ay Puntland hore u hiigsanaysay mid kastana wuxuu ku taamayay inuu Puntland gaarsiiyo qof iyo cod maadaama ay tahay Puntland hooyadii federaalka ee dowladda Soomaaliya meesha ka asaasmatay ama meesha markasta taageerada loogu muujiyo. waxaynu ognahay dowladda Puntland inay tahay markay la galay burburkii dowladdu u halgantay oo soo celisay magacii Soomaaliya inay Puntland. madaxweynaha ayaga cusub waxaan leeyahay hambaliyo madaxweyne soo dhawow. waxaan sidoo kale hambalyo uga dirayaa madaxweynihii tagay iyo ku-xigeenkiisa Camay. waxaan leeyahay madaxweyne ama santiin intaan noo qabateen soo dhawaa. Cabduqaadir Yaasiin Cabduqaadir Washington TV-ga caalamiga SBC magaalada Gaalkacyo.